kadib markii laga baahiyay xaaladda darbijiifta magaalada Burco TV-ga caalamiga ah ee Somsat oo ay tahay xaaladoodu kuwa aad u dayacan ayaa hay'adda taakulaynta iyo horumarinta Soomaaliyeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Sarado fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska oo la kaashanaysa TV-ga caalamiga ah ee Somsat wax ka bedelay nolosha qaar ka mid ah xabaglayaasha magaalada Burco kadib markii ay hay'addu soo gaarsiisay xafiiska TV-ga Somsat ee magaalada Burco lacag dhan $900 si wax loogu qabto xabaglayaasha magaalada uu TV-ga Somsat sida gaarka ah isaga xil saaray mas'uuliyiinta Somsat Burco la tashanaya culimada iyo waxgaradka magaalada ayaa isu soo ururiyay qaar ka mid ah xabaglayaasha Burco una sameeyay qada kulmisay wajiyo badan oo indheer ku soo jiray nolosha dayacan kana bedelay maryo ku raagay dushooda uguna bedelay kuwa u haastaanta muslimiinta isla markaana ku soo dabaalay masaajidka oo ah meeshii dhabta ahayd ee ay ahayd in lagu barbaariyo halkaasoo loo qorsheeyay in ay u baxaan khuruuj dhowr maalmood meel ka baxsan magaalada si ay uga fogaadaan deegaankii ay dhex joogaan isla markaana lagu soo barbaariyo waxa ay farayso shareecadu dadka waxa la doonayaa horta wanaag inay naftoodu hagaagto ilaahay baana hagaajin kara waxay ku hagaagayaan waa dacwadda dadka waxaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala shaqaale diimad ka dhigo ducaad ka dhigo sifaad wanaagsan siiyo ilaahay biyaada khaldanay shaydaanku ku naanaabay ee ku saacsamay shaydaan ku sacsay ilaahay ka soo saaro horta haddaan ka warramo arrintan dhibaato fara badan iyo dareen fara badan iyo hawl fara badan markaanu ka aragnay waanu la soo noolaanay waanu u tagnay waanu la soo majaalisnay aniga iyo saaxiibkay Cabdimaalig wax walibana waxay u baahan yihiin haddaan hareeraha la qaban oo aan la iska kaashanin to guriga kale guriga lagu ladan yahay ama aan xabagta lagu cabin jooga hadduu ku daawado kan kale ee xabagta cabba waxa weeyaan isna wuu iman doonaa waxa la dareenkayga markii hore sidaan ha ciriir baan markii hore ku jiray diiqad baan dareemayay imanka markaan masaajidka imi aan wax khamiis xidhay aan salaad yar tukaday waxaan dareemay nolol fiican iyo nololta aad u farxad leh ayaan dareemay aanu iga baaday diiqadii maga iskri haya zakariya balka war ma sidii hore iyo sidaan imika sidii hore aan baastan la qaataynka waxa ku noolaan nolol wanaagsan miyaad islaada ku noqon nolosha hore ma waxaan doonayaa aan wax barto aan hooyadana wax u qabtaa baan wax u qabto ana wax qabsto waan gartay adiga balka war أنا مركورة وحنا كريون لو حيران بان هذا دربي بنتيفسني كودي ويدي يا بهنا أنيكو وحيرة أيه كلا تكين قرنسا أنت تشرين شوبينا أنيكو تشرين مرة كي خيم كودي ولقي يا الله هنا دربي بنتي حناي دربي نوع كسر توسعي توحن دوني أنا قروش بحو أن هو يدي يا بهاي بحطره كور علمك صدر يمي سامك علمك واحد دريمي يا فرحتي الرين إما كيف بلابطي باي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد العزيز أرت مركي ورانا أرت دوليغان كنا ولا أرت وح بدنا يندريمي إما كسيدي عن مشاهد كبيت كي له سوق لنا قلبي يقول دقي سفي عنا إما وقص عدا لهنا أنا قرب قبته نور في عنا سيدنا أنا هاي أرتا وبس في عنا لكن مركي ورانا حاجة ومر قال نيجا قال كاد ماشي كسي حياتي وكديلو مركو كاوي وينتي سوس خرامان داغح كوكو دفنيا ميدي كوكو دفنيا ديبيا داوع بدن با كاسو كمرتنتيان دبدا سيحناي sidii aanu hawshan waxa ay u fullahayd waxaanu isku daynay in bal inta yar ee ay soo direen walaalaha hay'adani inaanu gacanta ka saarno balse waxa noo cadaatay in ay daada caruurtani in ay tahay inay ku soo iibsadaan xabagtii mar labaad balse waxaanu qorsheynay bal inaanu shaqooyin u abuurno shaqooyinka laftoodii waxaanu ku fakarnay inaanu keeriyoolayaal iyo baalashlayaal u iibino haddana waxaanu istusnay in ay keeriyoonkaas ay dhici karto inay dib u iibiyaan oo xabagtii halkii ay ka sii wadaan aragtida ugu wanaagsan ee nagu soo dhacday ilaahay nagu ilhaamiyay waxay ahayd inaanu farta ka saarno culimada qaar ka mid ah culimada ku hawlan dacwadda iyo tabliiqa loo yaqaan tabliiqiyiinta oo aanu ugu geyno xaruntooda ku dhacda guryaha macallimiinta gaar ahaan magaalada Burco halkaas oo ku dhaco masaajidka oo ah markiiska si loogu saaro daayartan loogu soo dabaalo diinta
sidii bilowgii ummadii muslimiinta ahayd ee laga hagaajiyay xagga caqiidada inay diintu ay tahay dawada qura ay basharku ama ummaddu ay ku hagaagi karto imika aanu sugayno 10 cisho kadib aanu doonayno dhalinyarada waxa iska soo bedelay iyagoo ay maanta ugu horeysa ay soo gaareen masaajidkani ay wajiyadooda nuur iyo iftiin iyo rayn iyo farxad iyo isbedel ay ka muuqato waxaanu ku boorinaynaa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iyo dadweynaha magaalada Burco gobolka Togdheer in darbijiifta magaalada Burco inay ka qayb qaataan insha Allah waxay awoodi karayaan waxaan aaminsanahay hadii loo kaco fikrad wanaagsan la keeno sida fikradan oo ay dadku iska ururiyaan waxoogaa qarasha in darbijiiftan waxyaabo badan loo qaban karo waxaa weli jira in badan oo ka mid ah xabaglayaasha oo u baahan in lagu dadaalo sidii kuwan loogu dadaalay sidoo kale kuwan lagu soo xidhay masaajidka ee wax laga bedelay noloshooda ayaa u baahan sidii loo adkayn lahaa waxa qabsoomay Cabdimaalik Muuse Aldoon Somsaad Burco.